inuu yahay tuug dhaca bangiyada ayaa ka dhigtay mid ay jecel yihiin shacabkiisu, wuxuuna noqday haliyey bulshadiisa ku dhex nool, wuxuuna xadi jiray waraqadaha ay deymaha iyo caymisku ku qoran yihiin, taasoo ka farxisay dad badan oo la daalaadhacayay deymaha bangiyada Mareykanka, waxayna u bixiyeen tuuggii la jeclaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawow daawada kanaalka Xangi Show. fadlan intaanan guda gelin muuqaalka, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro kanaalka subscribe noo saar, haddii aad muuqaalka ka heshina like saar mahadsan. Charles Floyd waxa uu ku dhashay gobolka Georgia ee Mareykanka sanadkii 1904, wuxuuna ka soo jeeday qoyska dabaqadaha hoose oo nolol adag ku noolaa. isagoo 7 sano jir ah ayay u guureen magaalada lagu magacaabo Oklahoma sanadkii 1911, halkaas oo ku koray. asxaabtiisa ku xeerani waxay u yeeri jireen wiilka quruxda badan ama the pretty boy. Charles wuxuu jeclaa nolosha shaxaadka iyo baashaalka, sidaa darteed ma uusan heli jirin qadarkii waxbarasho ee ku habboonaa. dhacdooyinka soo maray maalinba maalinta ka dambaysa ayaa ka caawisay inuu u fakaro qaab cajiiba. dhacidda bangiyada dalka Mareykanka waxaa soo martay arrin murugo weyn ku abuurtay, taasoo keentay inay soo baxaan dhacdooyin badan oo isugu jira dhac iyo tuuganimo. mid ka mid ah kuwa geystay dhacaasi waxa uu ahaa Charles, taasoo keentay markii uu adeegsaday garaadheeridiisa, wuxuuna la yimid qaab casri ah. Charles ma uusan dhacayn bangiga keliyata, sidoo kale waxa uu horay u sii qaadanayay waraqadaha deymaha iyo caymiska ku cad yihiin. subaxdii xigtay waxaa dhammaan dhacdadaasi ay qabsatay wargeyska dalka Mareykanka, tuuggii la jeclaa. kadib furitaankii warkii wargeyska, dhacdadaasi aad ayaa ay u soo jiidatay Charles, wuxuuna ka helay dhacdadii dhaca warqadaha deymaha ee bangiyada, isagoo ka dhiganay mid madadaalo ah. wuxuuna go'aansaday inuu ku celiyo mar labaad uu dhaco, laakiin markaan warqadihii damaanadda deynta ee bangiyada oo aad u tiro badan ayuu dhacay. wuxuuna u qorsheeyay dhacdadan si xigmad ku dheehan tahay, soo gelitaanka bangiga, fulinta hawsha iyo kasoo bixidiisaba. isla subaxii dambe wargeysyadu waxay ciwaan uga dhigeen wargeyska raadsha tuugga bangiyada, taasoo ka dhigneed in qaar badan oo ka mid ah dadka deymuhu ku go'naayeen ugu yeeraan tuugga la jecel yahay ama tuuggii aan jeclayn. maalmo kadib boolisku waxay awood u yeesheen inay aqoonsadaan tuugga, waxayna ku dhejiyeen sawirkiisa bogagga hore ee wargeyska si dadku u soo wargeliyaan loona xiro. raadinta booliska, Charles ayaa markaan dareemay in loogu hanjabay in la xiri doono daqiiqad kasta, taasoo ka dhigtay inuu sameeyo dhaqdhaqaaq iyo dhuumasho badan. markasta oo boolisku baacsadaanna wuxuu ku dhuuman jiray guri kasta oo la kulmo, iyadoo sidoo kale milkiilayaasha guriga ay ka caawin jireen inuu baxsado. qofna ma uusan rabin inuu caawiyo booliska oo uu bixiyo macluumaad ku saabsan isaga. dhimashadii tuuggii la jeclaa sanadkii 1934, kadib markii dhowr jeer raadiyeen boolisku, kuwaasoo dhammaantood lagu tilmaamay kuwa aan ku guulaysan oo ay sabab u tahay wada shaqayn la'aanta dadka magaalada iyo booliiska. Charles ayaa la helay isagoo la toogtay beer ku taal meel u dhow East Liverpool, iyadoo qofka dilka geystayna aan la aqoonsan, laakiin qof walba wuxuu ogsoonaa inay tahay mid ka mid ah cirsashadii ama bursashadii boolisku ay ku sameynayeen tuuggan. halkaas waxaa ku soo afjarantay noloshii tuuggii la jeclaa, wuxuuna dhintay isagoo 33 sano jir ah. maxaad ku tilmaami lahayd Charles Floyd?